ma maqashay hadalka oranaya haddii shidaal ama macdan Soomaaliya laga soo saaro cimiladu way isbedelaysaa xitaa baraf baa la sheegay hadalkaasi dad badan ayaa rumaystay qaarna way ka cabsadeen halka qaar kalena ay u arkeen digniin laakiin su'aasha maanta taagani waa tan ma cilmi baa ka dambeeya mise waa cabsi la iska dhaxlay muuqaalkan waxaan si qoto dheer ugu eegi doonaa xiriirka u dhexeeya shidaalka macdanta iyo cimilada Soomaaliya fikradda ah in qodista shidaalka uu cimiladu bedeli karo kama iman jaamacad kama iman saynisyahano mana ahan daraasad la daabacay waxay ka timid hadal la iska dhex qaaday cabsi laga qabo wax cusub iyo bulsho aan helin fursad ay ku barato sida ay cimiladu u shaqayso marka bulsho aan la barin cilmiga dabiiciga ah wax walba waxay u aragtaa calaamad ama ciqaab tani diin ma ahan tani waa aqoon la'aan si aan u fahno arrintaani marka hore waa inaan fahnaa cimilada naftirkeeda cimiladu ma ahan wax si degdeg ah u bedelma waa nidaam caalami ah kaasoo ku shaqeeya qoraxda wareegga hawada badaha iyo juqraafiyada dhulka cimilada lama bedelo hal mashruuc hal ceel ama hal dal waxay u baahan tahay isbedel caalami ah oo muddo dheer soconayo waxaad isweydiinaysaan su'aasha ah baraf siduu u dhacaa barafku ma ahan wax sixir ah wuxuu leeyahay shuruudo cadcad si baraf u da'o waa in heerkulku ka hooseeyo 0 degree hawo qabow oo ka timaada cirifyada dhulka iyo goobta oo noqota mid joog sare leh ama cimilo cirif ah haddaba isweydii shuruudahani midkood ma ka jiraan Soomaaliya jawaabtu waa maya Soomaaliya waa dal ku yaala qaatul istawa taasi micnaheedu waa qorax joogta ah dhul hoose iyo dad kulul oo ku wareegsan xitaa haddii dunida inteeda kale ay qaboojiso Soomaaliya waa meesha ugu dambaysa ee barafka dhici karo haddaba sidee ayuu ceel shidaal ugu awood badan yahay qoraxda qodista shidaalka waa hawl farsamo ah waxay ka dhacdaa meel kooban saameyn ku yeelan karta deegaanka ku xeeran una baahan tahay maamul iyo ilaalin laakiin ma saameyn karto wareegga hawada dunida xilli roobeedka dal dhan iyo heerkulka guud ee qaran isku xirka shidaal baraf waa qalad cilmiyeed qaar waxay yiraahdaan laakiin climate change wuu jiraa taas waa run laakiin isbedelka cimiladu waa caalami waxaa sababa gubista shidaalka muddo dheer wuxuuna sababaa kuleyl kordha abaar iyo fatahaad dal kulul sida Soomaaliya isbedelka cimilada baraf ma keeno aan ka baxno aragti aan galno xaqiiqo dalal kulul sida Sacuudi Carabiya Imaaraadka Qatar iyo Kuwait dalalkani tobanaan sano ay shidaal qodayeen baraf ma ka daay maya haddaba maxaa ka dhigay Soomaaliya mid ka duwan su'aasha saxda ah ma ahan baraf ma imaanaya su'aasha saxda ah waa sidee loo maamuli doonaa kheyraadka waxyaabaha laga walwalo wasaqow deegaan biyo wasaqowga musuqmaasuq iyo khilaaf bulsho kuwani waa dhibaatooyinka dhabta ah fariin bulsho qof leh shidaal iyo baraf ma ahan cadow waa qof aan la barin bulsho aan aqoon lahayn wax walba way ka baqdaa dood furan shidaal iyo macdan la qodo baraf ma keenaan laakiin aqoon la'aan cabsi iyo been la iska dhaxlay waxay hor istaagi karaan horumarka haddaba adigu maxaad aaminsan tahay marun cilmi ku dhisan mise hadal la iska dhaxlay haddaad rabto inay bulshadu wax fahanto la wadaag muuqaalkani haddaad rabto horumar ka bilow aqoonta